kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee Horfadhi Media kala walba la socda wararka caalamka iyo warbixinaha diblomaasiyadda falaqaynta iyo keenista wararkii ugu dambeeyay dunida ayaad kala walba kala socotaan Horfadhi qodobada aad wararkeena ka daawan doontaan waxa ugu weyn dalka Malaysia oo ku dhawaaqay inuu xirayo xaruntii ugu weyneed ee maalgashiga isla markaana ahayd xaruntii ka hortagga dhaqdhaqaaqyada kacdoonka iyo waliba waxa la yiraahdaa argagixisada boqor Salman oo ka daahfuray sanadkii hore magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalkaasi sidoo kalena waxay dawladda Malaysia ku dhawaaqday inay ciidankeeda kala bixi doonto xulafada Saudi Arabia dalka Canada waxa uu wali markaasi uusan dhig jala quusinin go'aamada dawladda dalkaasi Saudi Arabia ay wado dawladda Soomaaliya ayaa طبعا مركزي لا صفتي سعودي عربية وحنا أرنتاسي فعل عليس عقن كسمي دتك الصوماليات كنا الدوم كودان هو بدنا دتك الصوماليات هيستدل الشغل دتك سكنت قضى بدأ آسيا كوكلا ضد طبعا كم قلي دونتان ورك يوربحنا علينا عد مسياد ورك يقدم يي ديجان كصومالي ده مركزي الصومالي قلبي ده دولة ديجان كصومالي ده أيا كم ده قضى بدأ إذا هينو طبعا وحنا كل يجد الناس الصومالي ده أسامة يسيج عن كدولة الصومالية كل واقعي يصير ونقول عن سياسية ورك يقدم يي دلك السعودية iyo Canada oo iyagu markaasi si xoogan isku khilaafsan ayaa kamid ah qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaan waa 9kii bishii 8/2018 waa Khamiis waa mar kale barnaamijkeeni falqayteeda aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay haweeneyda marwada koobaad ee dalkaasi Syria ahna xaaska madaxweynaha Bashar al-Assad Asma Assad ayaa waxa laga helay xanuunka laga daweynaya xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha warbixin ay soo saartay wakaalada wararka ee dalkaasi Syria ee Sana loo yaqaano ayaa lagu sheegay in Asma la dhigay isbitaal military oo ku yaala magaalada la yiraahdo markaas Dimashq banaankeeda kaasoo laga daweynayo la yiraahdo xanuunkaasi oo looga saarayo la yiraahdo fin markaasi ah nooca kansarka ah ee naasaha ku dhaca Asma Assad ayaa waxay oo 42 jir ayaa waxay ku dhalatay dalka Britain ayay ku dhalatay asalhaansi waxay ka soo jeedaa gobolka bartamaha ee dalkaasi ee leedahay Homs waxa ay sidoo kale aad iyo aad u soo gaari jiray dhaleecayn xoogan oo inta badan lagu dhaleecay jiray in ay ka qayb qaadan jirtay dagaalada naxariis darrada ah ee ninkeedu uu ka wado dalkaasi 400 oo kun oo ruux oo dhintay ayaa la sheegay in ay markaasi qayb ka ahayd baa leeyahay inay caawiso baa leeyahay xubnaha militariga ah ee dagaalada ku dhaawacma qoysaskooda iyo in iyadoo la arko baa leeyahay shirarka uu Assad uga hadlayo baa leeyahay arrimaha amniga iyo fulinta awaamirta dagaaleed ka qayb galaysi dad badan ayaa waxay ku tilmaameen inay ahayd mid kamid ah dadka ugu naxariista daran ee ka qayb galayay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka soconayay 7 sano ugu dambeeyay Bashar al-Assad ayaa war qoraal oo soo saaray wuxuu sheegay inuu xaaskiisa u rajeynayo inay ka soo kabato xanuunka isla markaana waxa la sheegay in dawada markaasi gumniinka ah ee lagu gumo qiimada loo yaqaano loo bilaabi doono maanta oo markaasi Khamiis ah baa la yiri taasoo noqon doonta baa la yimid loo rajeenayay inay ku ladnaato sida lagu sheegay warka saxaafadeedka ka soo baxay dawladda dalkaasi Syria dalka Mareykankana haweeneydii ugu horeysay ee muslimada ayaa lagu wadaa in loo doorto inay ka mid noqoto aqalka Congress-ka ee dalkaasi Mareykanka gabadhan oo la yiraahdo Rashida Tlaib oo asal ahaan ama qoyskeeda abaheed uu ka yimid dalka Falastiin ayaa waxa ay ku soo baxday tartanka isreebka ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa gobolka Michigan oo ka tirsan gobolada bari ee dalkaasi Mareykanka sida ay qorayso wakaalada wararka ee gobolkaas ama wakaalada la yiraahdo Detroit Free Press waxa ay la sheegay in gabadhaasi ay ku guuleysatay 28.5 codadkii isreebka ahaa oo markaasi muujinayay inay garaacday ninkii ka soo horjeeday ama gabadhii ka soo horjeeday aan dhaho ee loo jiray Brenda Jones oo iyaduna heshay baa codad 14% waxay taas ka dhigan tahay in degmada 13aad ee gobolkaasi la yiraahdo Michigan ay ka soo bixi doonto bisha November marka ay noqoto 6 oo la galayo doorashada markaasi codaynta waxaana taas cadeyn u ah iyadoo aysan jirin cid la tartami doonta oo kolkaasi kula tartami doonta xildhibaanimada deegaankaasi oo la aaminsan yahay inay heli doonto dhamaan codadka halkaasi laga dhiibta ama ay u baahan tahay oo kaliya dadka markaasi codaynta u soo baxa inay codeeyaan maadaama aysan jirin hal ruux oo kula tartamaya xisbiga Republican ama Jamhuuriga ayaa ka haray inuu la tartamo gabadhaasi maadaama degmadu ay tahay degmooyinka loo yaqaano bluega ama degmooyinka bluega midabka bluega oo ka dhigan in dimuqraadiyiintu ay leeyihiin ay tahay sida daradeedna doorashada isreebka ah waxa uu ku tartama meelaha noocaas oo kala ah dadka xisbiga ka wada tirsan gabadhan ayaana garaacday markaasi xubintii kula tartamaysay xisbigeeda dhexdiisa Rashida waxay markaasi labay doontaa
ninka laga soo doorto gobolka Minnesota dalkaasi Mareykanka la yiraahdo Keith Ellison oo dimuqraadiga ah kaasoo asaguna noqday minkii ugu horeeyay ee muslina ee abid loo doorto Congress-ka Mareykanka dalka Mareykanka ayaa waxa ka taagan kacdoon xooggan oo haweenku ay ku xoojinayaan inay ka muuqdaan kuraasta kadib markii dhacdooyin badan iyo aflagaadooyin badan ay ka tirsadeen madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Trump oo lagu eedeynayo inuu gacmay dumar badan isla markaana dumarka ayaa waxay sameysteen haatan olole xooggan oo ay doonayaan inay isku muujiyaan war qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka ayay waxay tiri waxaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad ii samayseen bay tiri waqtigan ama daqiiqad aan runtii garaysa waayay bay tiri waxaan lumiyay ama waan shaqshagayaa bay tiri ama waxaan lumiyay waxaan dhaxo sida daraadeed ma sugu kara bay tiri inta aan idinku adeegayo gudaha Congress-ka ayay ku tiri war qoraal ay soo dhigtay barta Twitter-ka waxay sheegtay gabadhaasi inay xoojin doonto markaasi doorka dalka Mareykanku ee ah doorka markaasi liberalism-ka loo yaqaano ama doorka dabcan ah in markaasi si xora ama dimuqraadiyadda la xoojiyo iyo in codka haweenka la maqlo sidoo kale waxay sheegtay inay degmada ka dhigi doonto markaasi mid hodana oo hesha xuquuqda kaga maqan dalka Mareykanka gudihiisa iyo waliba dabcan xuquuqda ay tahay in Congress-ku ay ka hesho halkaad nagala socotaan waa warbixinihii iyo wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda dabada qiimaha leh dawladda dalka Mareeshiya ayaa amar ku bixisay in si degdeg ah albaabada la isugu dhufto xaruntii dhexe ee la oran jiray ama loo yaqaanay The King Salman Center for International Peace oo ah maxad balaaran oo ay ku baxday malaayiin dollar oo loo soo gaabiyo KSCIP oo ku taalay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Mareeshiya warka qoraalkaas oo ka soo baxday wasaaradda amniga iyo difaaca ayaa waxa lagu sheegay in ujeedka aan ilaahay talcadeed doonin balse sida ugu dhaqsaha badan la rabo in loo joojiyo baa leeyahay mashruuca halkaas ka soconayay oo ahaa xarun kira ah iyadoo bedelkeedii ay soconayso xarun ay ku baxayso malaayiin dollar oo loo dhisayay xaruntan oo loo yaqaan xarunta ka hortaga kacdoonada baa leeyahay kooxaha wax qarbuda ee dalalka islaamka oo ah baa leeyahay mid markaasi Amir Salman bin Abdul Aziz oo sanadkii hore xariga ka jaray gaar ahaan xukuumadii u xiriirka wanaagsan la lahaa ee ra'iisul wasaare dhawaan talada laga qaaday wasiirka difaaca ee dalkaasi Maxamed Sapu ayaa wuxuu sheegay in inta la wado ayuu yiri xiritaanka iyo waliba wuxuu yiri soo afjarista baa leeyahay dhaqdhaqaaqa Sacuudiga dalka gudihiisa sidoo kale lagu dhawaaqay buu yiri in ciidamada Mareeshiya ee ku sugan boqortooyada dalkaasi Saudi Arabia kuwaas oo caawinayay baa leeyahay dadka reer Saudi Arabia ee ciidankooda ka dagaalamayaan Yemen ay ayagana la soo daadguray doona markaana dalka dib loogu soo celin doono Xishmaddin Hussein oo asagu ahaa wasiirkii hore ee difaaca ee dalkaasi Mareeshiya oo ahaa kii saxiixay ama ogolaaday in bishii March 2017 xaruntaasi si rasmi ah uu u furo boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud ayaa wuxuu sheegay in ay tahay wax laga naxo go'aanka dawladda cusub ee Mahathir Mohamad ka soo baxay buu sheegay isagoo sheegay in xaruntan ay muhiim u ahayd ka hortagga kooxaha wax qarbuda ama kooxaha islaamiyiinta oo soo hadalka u dhigay taasoo boqor Salman uu malaayiin dollar ku bixiyay in la raaceeyo buu ama la raad galo ama la raad guro buu kooxaha wax qarbuda ama dhalinyarada abaabulan ee ficilada dambiyada ah sameey kara ee kamid yihiin buu Al-Qaacida kuwa la yiraahdo ISIS iyo kuwa kale oo caalamka islaamka ka jiray buu si kastaba ha noqotee Maxamed Sapu wasiirka difaacu muusan sheegin sababta loo xiray xaruntan hase yeeshee indhowta waxa soo baxayay in kala duwanaan xooggan ay ama isbedel xooggan uu ka yimid dalkaasi Mareeshiya oo ra'iisul wasaarihii hore Najib Razak iyo xukuumaddiisii ay aad ugu dhaweyd Saudi Arabia oo malaayiin dollar oo markaasi la sheegay inuu dhacay ay xataa Sacuudigu sheegeen inay iyagu siiyeen dalka Mareeshiya oo kamid ah dalka ugu weyn caalamka islaamka ayaa waxay sheegeen in Saudi Arabia siyaasadaheeda markaasi kala qaybinta ah ee dalka Mareeshiya ay shaki badan u ka qabo Dr. Mahathir Mohamad oo asagoo ah ruqacada siyaasadeed xarunta laga maamulo dalka Putrajaya ee dalkaasi Mareeshiya ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in gabi ahaanba la hakiyay dhismihii dawladda Sacuudiga halkaasi ka waday oo haabalay mid malaayiin dollar uu ku baxayay dawladii hore ama golihii wasiirada uu kamid yahay Xishmaddin Hussein wasiirka hore difaaca ayaa sheegay in dhaqaalaha Sacuudiga ee laga joojinayo maalgashiga dalkaasi ay ka dhigan tahay ayuu yiri mid markaasi meel ka dhac ku ah buu yiri dalka Sacuudiga oo markaasi doonayay inuu maalgashi fiican ka sameeyo gudaha dalkaasi Mareeshiya halka nagala socotaan waa wararkii iyo warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh ka gaan caalamka oo dhan Hurfadhi Media aad kala socotaan wararka afka hooyo annagoo markaasi idinku keenna warar wacaalo iyo xogo markaasi aad u tafqiya tirane haatana deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida
wararka ugu dambeeyay ka imaanaya deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdi Maxamuud Cumar lagu hayo magaalada xarunta ah ee Addis Ababa. Waxaa la sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar uu xiran yahay isla markaana uusan lahayn balay galaangal markaasi uu ku bixi karo, walow la sheegay in uu ku jiro guri xabsi guri. waxaana wararku sheegaya in amnigiisa aad loo adkeeyay guriga uu ku jiro. waxaa wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in isku dayo iyo kulamo ka soconaya magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka ilaa hadeerto aysan ka soo naasacadaanin in go'aan siyaasadeed oo masiiri halkaas laga gaaro. dad goobaha ganacsiga iyo waliba internetada ayaa daciif ah, sidoo kalena goobaha ganacsiga ayaa gabaabsi ah. dadkii badnaa ee ka soo jeeday qowmiyadaha kale ee dalkaas Ethiopia ee ku sugnaa dalka xarunta magaalada Jigjiga ayaa u cararay magaalooyinka Harar iyo waliba magaalada Addis Ababa lafteeda xarunta. waxaana la sheegayaa in dadkaasi ay baacsanayeen dadka Soomaaliyeed ee ka carooday dhibaatooyinka halkaasi ka jira. dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa iyaguna haatan rajeynaya in xaaladdu ay isbedesho. sidoo kale waxaa magaalada dul heehaabaya dayuurado loo maleynayo inay yihiin kuwa dagaal oo dowladda dalka Ethiopia ay ciidankeedu ay wadaan kuwaas oo muuqda inay magaalada ku hareeraysan yihiin. wararku waxay sheegayaan in sharar halkaas ka soconayay dhamaantood ay yihiin kuwa albaabada loo xiray. ciidamada Libyooska ee ku sugnaa deegaanka u dhow magaalada Dhagaxbuur ayaa halkaas ka baxay waxayna gaadheen deegaanka Shilaabo. wararkuna waxay sheegayaan in aan la garanayn ujeedada ciidamadaas ay u gaadheen Shilaabo. si kastaba ha noqotee dadaalka xooggan oo ay wado dowladda Ethiopia ayaa u muuqda leeyahay kuwa ay doonayaan inay hubka uga dhigaan ciidamada Libyooska ah oo aan la garanaynin cidda ay markaasi doonayaan inay ku bedelaan. sidoo kalena ma muuqato markaasi heshiis xooggan oo ilaa hadeerta u dhaxeeya dowladda Ethiopia. waxay sheegaysaa inay marxaladda ku xalli doonto qaab kasta oo ay tahay in xataa ay ku jirto talaabo military. halkan kala socotaan warfadhi media qaybta dambe iyo wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda. هم وقالنا دعوة شكرا.